Asalaamu calaykum waa idin salaamay asxaabta. Muuqaalkan waxaan ku samayn doonaa qaabkii aad u samayn lahayd after iyo before adigoo isticmaalaya CapCut markaa. Qaabka u samayn kartaa waxa weeye inaad laba muuqaal markaa soo geliso projectigaaga waxaan soo kaco applicationka markaa. Applicationkiisa markuu soo kaco waxaan sameynayaa muuqaalkii koowaad baan soo dooranayaa ee before ta noqonaya. intaa markaan sameeyo muuqaalka waxaan doonayaa markaa inaan hagaajiyo oo background siiyo. background color cadaanka way dooro. intaa markaan sameeyo muuqaalka heshiisa taabo haddana waa yahay muuqaalka soo koob halkan iska soo dhig muuqaalka. intaa markaan sameeyo muuqaalka waxaan doonayaa in hareerihiisa soo xodo hal mar saa u taabo. markaad taabato intaa sameyso maskiga ku dhufo. mask markaad ku dhufato triangle dooro saa u yaraado xagga sare saa u jiid dhinacana jiid halkaana ka soo xag saa u soo xodo. intaa markaad sameyso toos baad uga baxaysaa muuqaalka labaad soo dooro. haddaba muuqaalka labaad waxaad soo gelinaysaa overlaygaas aad taabanaysaa. overlayga markaad taabato muuqaalkii baad soo dooranaysaa. muuqaalkii markaad soo doorato haddaba isagana sidiisi leeg ayaad uga qabanaysaa. waxaad sameynaysaa maskigaad ku dhufanaysaa triangle size-ka markaa gacantaada ku sii ayaan ka sii weynayay ka ballaariyay intaa markaan sameeyo waan ka baxaya. haddaba halkaa markay marayso waxaa dhintii ugu muhiimsanay ee ahayd maxay in markaa midna haddaan imika saa u shido labaduba way markaa soconaya. haddaba si aan markaa midna ugu baxo midna ay markaa aan u shidnaan waxaad sameynaysaa kaa hore before ta maahay ka dambe aad doonaysa inaad aamusiiso ayaad hal mar taabanaysaa waad soconaysaa. waxaad markaa dooranaysaa freeze hal mar baan taabanaya. muuqaalkii labu kala noqday saad arkayso waa yahay muuqaalkan nabar markaa dooranaya ee aan markaas ugu shaqaynaya aan fadhiisan horena waa mid markaa aan shidnay waan jiidayaa waxaan gaarsiinaya labada muuqaalku kala haraan halkaa markay marayso waxaad soo jiidaysaa kii kale markaad soo jiido waxaad sameynaysaa labadii muuqaal baad isgaarsiinaysaa. haye muuqaalkan ku xigana sidiisi lag ayaan ku sameynaynaa. isagana hal mar baad taabanaysaa waad soconaysaa freeze baad dooranaysaa waa yahay muuqaalkan damba markaa fadhiya isagana waxaad gaarsiinaysaa ilaa muuqaalku dhammaanayo. intaa markaan sameeyo waxaa dhay qoraalkii baa haray waa yahay qoraalkii baa haray. text taabo text xagga sare iyo dib waa yahay style fartaada iga bedel waa yahay midabka farta ka bedel waa caadi fartana yaree waa yahay before intaa markaan idhaahdo ayuu soo jiidayaa tagaska markaa ilaa muuqaalkan halkaas labada muuqaal kala haraya. halkaa markaan soo dhigo waa yahay laba mid waan haystaa markaa inaan muuqaalkan hore intaan taabto duplicate ka dhigto oo ay laba ii kala noqdaan aan markaa mid soo qaato weliba kan hoose soo qaato iyana taas ka bedeyso oo aad samayso inaad sidiisa u soo geliso qoraal sidii kan oo kale isagana halkan dhigto aad tiraahdo markaa after tiraahdo oo isagana aad toos markaa u geliso qoraalkana jiido. intaa markaad samayso muuqaalka ayaynu daawadeynaa imika.
intaa waxaan ugu eeg muuqaalkeenii. Assalaamu calaykum, aad baan idin salaamayaa dhammaan ardayda.